madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaaladan Qardha kadib safar dhanka dhulka uga yimid magaalada Garowe bulshada Qardho ayaa madaxweynaha uga hortagay banaanka magaalada si ay u soo dhaweeyaan kuwaas isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada Qardho waxay u jirtaa Garowe in ka badan 200 kiiloomitir waxaana intii madaxweynuhu uu soo socday oo ku hakanayay hadba deegaano kala duwan oo bulsho kala duwan ay ku nooleed kuwaas oo dadku ay wadooyinka u taagnaayeen inta uu soo socday madaxweynuhu waxa uu dhagax dhigay wado cusub oo laga dhisay inta u dhaxaysa Eyl iyo Dangoroyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku hanka doona magaaladan Qardha si uu la kulmo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana uu dadweynaha reer Qardha kula hadlay bartamaha magaalada waa wada hadli doonaa si fiican baan idinku warrami doonaa xaaladda dalku ku jiro idinkuna waa mahadsantihiin saas ugu soo baxdeen iyo taageeradiinna maalinta kulul oo qoraxda joogtaan waa mahadsantihiin walaalayaal waa mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato waxaan idin rajeeyay guul waxaan idin rajeeyay khayr waxaan idin rajeeyay horumar waxaan idin rajeeyay himilo wanaagsan Soomaaliya ha noolaato mar kale waa mahadsantihiin Cali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Qardho